wasiirka cusub ee wasaaradda qorsheynta Somaliland Dr. Cabdi Cismaan Shimbil oo dhawaan madaxweynaha Somaliland u magacaabay xilkaasi ayaa telefishinka bulshada wax ka weydiiyay sida uu arko xilkaasi وارنتها مدحونا سوماليلاند مسبح عبد الحلبي مقعابي وزير qorsheynta qaranka aad iyo aad baan soo dhaweynaya inuu iga doortay dad badan oo xilka qaban kari lahaa ma iga bafficna marka aad baan soo dhaweynaya xilka geesta kale wasiirka cusub ee wasaaradda qorsheynta Somaliland ayaan wax ka weydiiyay waxyaabaha uga qorsheysan sanduuqa horumarinta Somaliland oo gobolada qaar Somaliland ay cabasho badan ka muujiyaan waxaanu ugu jawaabay wasiirku والله وزارة وان كشغان شري قلت أو تيجوا معصب وزارة بركة على سيرة شو يوزير كها وان كشغان شري يعني شغل بدل قبطان دي وحيدون مركز سيدي لو استوى في شيء لها يعني دتك دون رزقية ده شغل قرك اللغة بنيو أيوم تحاول إن شاء الله تعالى وانا أقبل ورش وين نكو كوجولس لقمان محمد فرح برشة تيفي هرقيسة.